وعلى wanaagsan idahantiin badawadayaal halkaad naga dheeraysaan waa Jeeka Media News fadlan haddii aad nagu cusub tahay falowna soo dheh haddii uu muuqani ku soo gaarana saaxiibada la wadaag waxaynu warbixinteenan ku dul istaagi doonaa mid ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay geyga Soomaalidu degto ahna kan qarnigan la joogo ugu caasan ka kormaray faciisa ay isku mihnada yihiin ku guuleystay abaalmarino kala duwan sidoo kale mid bulshada Soomaaliyeed fankiisa jecel yihiin walow ha u badnaato dhalinyaradan samankan joogtee koodarso waa mid fankiisu ka gudbay qaaradka qaarad si kale haddii aan u dhigo waa mid fankiisu ka tisqaaday Afrika, Europa ilaa Amerika noqdayna kan ugu saamaynta badan dunida iyo waqtigan la joogo haddii aan sii qeexo waa fanaankii geerashla ahaa haddana loogu jecel yahay heesaha uu qaado shakhsiga aan ka hadlayaa ma ahin ciyaartoy ku caanbaxay laagista kubadda cagta balse waa fanaankii ku caanbaxay heesaha loo yaqaana raabka Sharmaarke Cabdinaasir loo garan og yahay Sharma Boy waxaana xudur u ahaa bilowga fankiisa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa iyo fankiisu saameyn ku yeeshay dunida dacaladeeda waxayna dadka fanka falanqeeya ku tilmaameen dahabigii fanka hogga ka soo saaray iyagoo intaasi ku daray inuu yahay dayax 15aad u soo baxay fanka Soomaalida iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed hase ahaatee waxa uu nasiib u yeeshay inuu fanka ka sameeyo dhaqaale noloshiisa kaafiya kuna filan xitaa haddii uu fanka iska daayo taasi oo aysan nasiib u helin fanaaniin badan oo ka daaweyn kuna duloobay fanka kuna jira waqti badan sidoo kale Sharma Boy waxa uu noqday mawaliyaha dhalinyarada Soomaaliyeed fankana uga dhigay inuu u baahan yahay hiil iyo in kor loo qaado fanka Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan fanaaniin faciisa qaadana heesaha raabka kuwaas oo inta badan ay ka jecel yihiin heesaha ay fanaaniintaasi raab gareeyaan kuwa Sharma Boy sababtuna ay tahay inay ka saameyn badan yihiin maadaama heesaha Sharma Boy badankoodu yihiin kuwa milyanka kulaaraya kala gudbay darajada keeda waxaana uu safka hore kaga jira fanaaniinta loogu hadalhaynta badan yahay looguna jecel yahay fankooda dunidan casriga ah aynu ku dul dhaqanahay haddii aynu dib ugu laabano heesaha ugu saamaynta badan ee uu sanadkani daawaha ka soo qaaday waxaa ka mid ah heestii la magac baxday ma fahmin iyo heestii moogi kuwaas oo ay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen